wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxa ay sheegayaan in maanta halkaas ay ka degeen ama ay ka degtay diyaarad sidee ciidamo hor leh oo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya gaar ahaan booliska sida gaarka u tababaran. wariyaha inooga soo warama gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb Maxamed Cabdulle Tooxo ayaa warkaan noo soo diray gordho. garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ayaa maanta oo Isniin ah waxaa ka soo degtay diyaarad sida cutubyo hor leh oo ka tirsan ciidamada booliska ee sida gaarka u tababaran ee Haramcad. ciidanka soo gaaray magaalada Dhuusamareeb oo tir ahaan gaaraya ilaa 50 askari ayaa waxaa laga soo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb. sidoo kale ciidanka ayaa la sheegayaa in la geeyay xarumaha dawladda isla markaana ay ku biireen kuwii hore dawladda ay uga soo dejiday garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. dawladda ayaa dhowr jeer hore Dhuusamareeb ku soo daabushay ciidamo kala duwan kuwaasi oo ay ku tilmaamtay inay ka qayb qaadan doonaan sugidda amniga magaalada Dhuusamareeb iyo sidoo kale xoreynta deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin Galmudug. si kastaba ha noqotee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxaa lagu wadaa in dhawaan ay ka dhacdo doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale midda madaxweynaha Galmudug, iyadoona si aad ah loo adkeeyay ammaanka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Maxamed Cabdulle Tooxo, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa lagu eedeeyay inay ku kacaan gabood falla ka dhana shacabka xilliyada ay weerarka kala kulmaan dagaalamayaasha al-shabaab. Burhaan Diin Faarax oo warka ila akhrinaya ayaa warbixintan ka diyaariyay. warbixin dheer oo ka soo baxday hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada Kenya gaar ahaan kuwa militariga ay xadgudubyo xad dhaaf u geystaan dadka Soomaaliyeed ee degan magaalooyinka ku yaala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. warbixintan oo aad u dheer lagu qoray wargeyska The Washington Post ayaa lagu sheegay inay xad dhaaftay dambiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee geystaan ciidamada Kenya una geystaan dadka Soomaaliyeed marka al-shabaab ay weerar u geysato. hay'adda Human Rights Watch waxa ay warbixintan ku sheegtay inay diiwaan gelisay in ka badan 88 kiis oo ciidamada Kenya ay geysteen laga soo bilaabo sanadkii 2011. meesha ay warbixintan sida gaarka u dul istaagtay waa tuulo la yiraahdo Kutulo oo ka tirsan ismaamulka Mandera. tuulada dadka ku nool waxay joogto u yihiin cabsi ay ka qabaan ciidamada militariga Kenya ee KDF loo yaqaan, kuwaas oo dila, xira, jirdilna u geysta dadka magaalada marka la weeraro iyagoo jidka maraya. magaaladan ceelasha biyaha ee ku yaala waa laga xabaalay, waxaana ay u doontaan biyaha meelo fogfog, waxaana dhibaatadaas u geystay ciidamada Kenya. markastoo ay maqlaan ciidamada Kenya gaadiidkooda ay ku soo dhow yihiin waa laga baxaa magaalada, habeenkiina si dareen leh ayaa lagu joogaa sida ay sheegeen. in ka badan inta ay ka baqaan al-shabaab ayay naftooda kala baqaan ciidamada Kenya. dadka Soomaaliyeed ee xuduudda degan ayaa lagu yiri warbixintan lagu daabacay wargeyska The Washington Post. warbixintan waxaa sidoo kale lagu sheegay in 8 sano ee ciidamada Kenya ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya inay aad u bartilmaameysteen dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan marka ciidamadu ay la kulmaan weerar kaga yimaada al-shabaab. Ciise Axmed wuxuu ka mid yahay dadka degan tuulada ceelka tuulo la yiraahdo, waxaana uu sheegay guddiga warbixintan diyaariyay in cabsi darteed ay u qoteen godad ay ciidamada uga dhuntaan. waan cararnaa oo dhuumanaa markasta oo aan maqalno ama aanu helno war sheegaya in ciidamada Kenya ay soo socdaan, ayuu yiri Ciise. dadka halkan degan waa muwaadiniin Kenyan ah, haddana cabsi ka badan tan aan ka qabno al-shabaab ayaa ciidamada militariga ka qabna, ayuu sidoo kale yiri. guddiga ka socday hay'adda Human Rights Watch ee warbixintan diyaariyay waxa ay sheegeen inay la kulmeen shakhsiyaad inta ciidamada Kenya xireen la sii daayay, hase haatee cabsi darteed u diiday inay la hadlaan ama ay ka hadlaan wixii ay la kulmeen. ciidamada Kenya wixii ay doonaan ay halkan ka sameeyaan mana jirta cid la hadasha ama naga celisa, waxaa sidaa yiri nin kale oo dadka deegaanka ah lana yiraahdo Maxamed Cilmi. maxamed waxa uu adeer u yahay Cabdiqaadir Cilmi oo 34 sano jir ahaa. ciidamada Kenya ay dileen markii miino loo dhigay kolonyo gaadiidkooda kamid ah oo marayay meel tuuladooda u dhow. ninkan waxa uu sheegay in habeenkii iyagoo dareen qaba ay seexdaan. cadaadiska ciidamada Kenya ku hayaan dadka Soomaaliyeed ee dhulkooda ay Kenya maamusho waxa ay keentay in dhalinyaro badan ay hubka qaataan ama ay ku biiraan al-shabaab. xogo wargeyska aan xiganayna ee Washington Post uu helay waxay muujinaysaa in boqolaal dhalinyaro ah oo deganaa Kutulo ay carad darteed al-shabaab ugu biireen. sababta wargeysku waxa uu ku sheegay inay tahay kadib markii ciidamada Kenya ay deegaankaasi ka xireen macallin dugsi Quraan, maalmo kadibna meydkiisa la soo dhigay deegaan kale oo la yiraahdo Cawsmudul. meydka macallinkaas waxaa la dhigay meel wada dhinaceeda ah. Human Rights Watch waxay warbixintan ay diyaarisay ku magacawday xadgudubyada bustaha ka hoos jira. waxay sidoo kale ku sheegtay in ciidamada Kenya gacantooda lagu tuumayo 10 ruux oo aan weli raqdooda iyo ruuxdooda midna la helin.
dowladda Kenya way dafirtay eedda loo jeediyey sida ay shaaciyeen guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha Kenya. haweeneyda guddigan madaxda u ah oo magaceeda la yiraahdo Jadiid Daawarihu waxa ay sheegtay inay jirin eedda ciidamada Kenya loo jeediyey, waxaana inta ay ku dartay inuusan sidoo kale jirin wax xoga oo xafiiskooda soo gaaray. Jadiid Daawarihu waxay ku eedeysay dadka degan tuuladan ay warbixintu xustay inay diideen inay la shaqeeyaan guddi baarakiiskooda oo loo diray, sidoo kalena ay ka jawaab waayeen su'aalo arrintan la xiriira oo la weydiiyey. wargeyska Washington Post waxa uu sidoo kale sheegay inuu ogaaday in dowladda Kenya xataa ay diiday inay la shaqeyso guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ka socday. dowladda Mareykanka oo ciidamada Kenya ka caawiya dagaalka Al-Shabaab ay kula jirto ayaa iyana sheegtay inay ka naxeen warbixintan markay ay maqleen, waxaana sheegeen inay baarayaan. afeen u hadlay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom Desire Vreme ayaa sheegtay in ciidamada Kenya ay baraan ilaalinta xuquuqda aadanaha. dadka falanqeeya arrimaha ammaanka waxay aaminsan yihiin in haddii ciidamada Kenya ay sii wadaan dhibaatada ay u geysanayaan shacabka Soomaalida ah in cadowgooda ay badsanayaan, waxaana ay keenaysaa in Al-Shabaab ka faa'iideysto oo dhalinyaro badan qortaan. dhowr mar ayay soo baxday eedda ah in ciidamada Kenya ay ku xadgudbaan dadka shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka ku yaala xuduudda iyo xataa gudaha Soomaaliya. magaalada Muqdishona haddaan usoo laabano, degmada Kaxda ee gobolka Banaadir maanta waxaa ka dhacay banaanbax looga soo horjeeday dirarka ku salaysan aanooyinka qabiilka oo degmadaasi ku badan waayahan dambe. waryaheena Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan inoo faahfaahinaya. wararka laga helayo degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa waxay sheegayaan in maanta ay banaanbax dhigeen dadka deegaanka. banaanbaxa ay dhigeen qaar ka tirsan shacabka degmadaasi ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay dhaawac loo geystay haweeney ka mid ah dadka deegaanka isla markaana goob maqaaxi ku lahayd degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. goobjoogayaasha ayaa waxay sheegeen in dhaawac haweeneyda ay ka dambeeyeen koox ku libisan dariiska ciidamada dawladda, isla markaana uu muran soo kala dhaxgalay. maalmihii ugu dambeeyay ayaa degmada Kaxda waxaa ka taagnaa dilal salka ku hayo aanooyin qabiil, iyadoona ay wararka sheegayaan in dilalkaasi ay ku soo laabteen degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. qof ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen, isagoona sheegay in degmada Kaxda ay ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa dadka deegaanka, isla markaana baaq u diray maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda dawladda. taaka waxaa ka dhacday gabar habeeneye oo maqaayad leeyahay fadhigeeda lagu yimid. marka fadhigeeda lagu yimid waa meeshii loo yimid maqaayada xiriir la yiri. maqaayada maxaa uu xiraayay tiray amar waaya xir waa markii xirtay maqaayada xabada lagu furay. xabad markii lagu furay waa cartay dukaan markay kashay kabacdi dukaan ka soo cartay waa la bursaday saddex xabadood waa luuri hal xabada feeraha ayaa dhacay. marka niman oo ciidamada shaati dawladda wado ayaa waxa sameeynaayo oo marka oo waxay ku galabsadeen lama garanayo. waa degmada qayb ka mid ah ka joogaan degmada wax ka joogaan waa ciidamo oo dawlad oo meel degan oo shaati dawladda wado oo marka arrinta wax badan ay soo laabatay. waa arrin waxyaalo marar badan dhaceen. marka niyaho arrinta dib ka taagan xafada banaanbaxyaa ka taagan goobihii ganacsiga waxay yihiin wax dhaqdhaqaaq oo furan xayiraatay ma jirto. wax dhaqdhaqaaq oo yiri oo yimid oo jiro ganacsi waxay yahay raayay waxay yihiin iskuuladu waxay yihiin wax walba waxay wax badan waxaa soo noqdeen dawladii waa loo gudbiyay wax ka qabtay ma jiraan. gudoomiyaha degmada waa ogyahay wuxuu ka qaban kara ma jiraan. arrintan waxaana gudoomiyaha gobolka iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha inay soo farageliyaan maafadan iyo shacabka meeshan lagu laanayo. waxaa ka rabnaa si degdeg ah in wax loogu qabno. waa aan qabin waxaan wax badan soo laabto waayo wax ka dhaxeeyo oo gooniyaha dadkan wax kale ka dhaxeeyo sheekar ma jiro. xiriiro kala duwan oo la sameeyay maamulka degmada Kaxda iyo taliska booliiska degmadaasi ayaa inoo suurtagal weyday inaan qadka telefoonka ku haleelno si aan wax u weydiino xiisadaha ka taagan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, isla markaana u dhaxaysa dadka deegaanka. aad baad u mahadsantahay Farxaan Maxamed Xuseen. golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa lacaga ay ka jireen mushaaraadkooda waxay ugu deeqayaan dadka ay saameeyeen fatahaada webiyada. Cumar Maxamed Soomane ayaa arrimahan ka wareysanay. maxamed aad baad u mahadsan tahay. dabcan sidaad sheegtay kulankii maanta uu gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaa intiisa badan diiradda lagu saaray in golaha aqalka sare degdeg 24 saac ee soo socda ay kaga jawaabaan musiibada ka taagan magaalada Beledweyne ee caasimada gobolka Hiiraan iyo deegaano ka tirsan deegaanada Jubbaland ee webiga Jubba uu saameynta ku yeeshay. go'aanadii ugu dambeeyay ee samatarada aqalka sare ay qaateen waxay ahayd in mushaaraadkooda lacag gaaraysa ilaa $1,000 ay iska jiraan si ay ugu deeqaan
dhibaatada ka taagan fatahaada biyaha webiga Shabeelle waxaana ay sheegeen in xilligan aan laga aaminsi karin dhibaatada ka taagan magaalada Beledweyne iyo sida ay dadka saameynta ugu yeelatay. Guddoonka ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan in qayb kamid ah mushaaraadka ee sanatarada aqalka sare ay ku bixinayaan dhibaatada ka taagan magaalada Beledweyne iyo fatahaada biyaha webiga Jubba uu ka geystay qayb kamid ah deegaanada Jubbaland gaar ahaan duleedka magaalada Kismaayo. waxaana talaabadan ay imaanaysaa kadib markii guddiga qiimeynta fatahaada biyaha webiga Shabeelle ee golaha aqalka sare ay maanta soo gudbiyeen warbixintoodii ku saabsanaa halka ay marayso xaaladda dhibaatada fatahaada biyaha webiga Shabeelle ee ka taagan magaalada Beledweyne iyo deegaano ka tirsan Jubbaland. waana sababta keentay in guddoomiyaha golaha aqalka sare uu aad u soo dhaweeyay warbixinada guddiga ay soo gudbiyeen iyo go'aankan ku saabsan in qayb kamid ah mushaaraadkooda ay ugu deeqayaan dhibaatada ka taagan gudaha dalka ee fatahaadaha webiyada dalka ka jira. cumar maxamed soomane aad iyo aad u mahadsan yahay. gargaar hor leh laguna talagalay dadka ku barakacay fatahaada webiga Shabeelle ayaa maanta waxaa la geeyey magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. wariyaheena Ismaan Aadan Carays ayaa warkaan inoo soo diray. waxay soo tarayaan gurmadka kala duwan ee soo gaaraya dadka fatahaada biyaha webiga Shabeelle ay saameysay ku dhaqan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan iyadoo guddiga gurmadka abaaruhu haatan ay wadaan qorshaha deeqdan raashinka loo gaarsiin lahaa kumanaanka qoys ee ku barakacay gudaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. inkastoo dad badan ay ku dhaqan magaalada Beledweyne deeqdan aysan wada gaarin kuwaas oo haatan ku sugan xaafadaha magaalada iyo tuulooyin ku dhow magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. dhanka kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Beledweyne ayaa saaka waxay booqdeen goobo kala duwan iyagoo u kurgalaya xaalad dadka ku dhibaataysan fatahaada biyaha webiga Shabeelle iyo deegaanada dhibaatada baan u geystay fatahaada. inkastoo qaybintani deeqda raashin lagu sareeyay qaabbeeleed ayaa cabasho xoogan waxaa ka muujinaya qaar ka mid ah qoyska deegaan ahaan ku yar Beledweyne kuwaas oo ka codsanaya guddiga gurmadka abaaraha inay ilgaar ay ku eegaan iyadoo deeqda raashin qaareen qaar ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya ee dariska la gobolka Hiiraan ee haatan ku soo wajahaya deeqo kale ay u talagaleen dadka fatahaadu ay saameeyeen ee magaalada Beledweyne. Ismaan Aadan Carays, warbaahinta KNN, Beledweyne. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen ayaa amray in la dardargeliyo sidii degmada Baraawe godoonka ay geliyeen al-shabaab looga saari lahaa. Axmed Abuukar Sabriye wariyaha KNN ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa warkan inoo soo diray. kulamo ay albaabada u xirnaayeen sidoo kalena aysan goobjoog ka ahayn warbaahinta ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa ay degmada Baraawe ku dhex marayeen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, odayaasha dhaqanka maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda. inta badan kulamadaasi ayaa diiradda lagu saaray amniga iyo la dagaalanka al-shabaab. waxaa sidoo kale qodobada diiradda lagu saaray kulamadaasi qayb ka ahaa sidii go'doonka looga qaadi lahaa degmada Baraawe oo xilligan wadooyinka gala ay u go'doonsan yihiin al-shabaab. ilaa aan soo xiganay oo goobjoog u ahaa kulamadaasi ayaa inoo xaqiijiyay in madaxweyne Laftagareen uu amar ku siiyay saraakiisha AMISOM iyo kuwa ciidanka xoogga oo kulanka qayb ka ahaa in ay dardargeliyaan howlgallo qorshaysan oo al-shabaab looga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin degmada Baraawe si uu meesha uga baxo go'doonka ay ku jirto degmadaasi. qorshayaashaasi ayaa guud ahaan qayb ka ah dadaalada lagu doonayo in si degdeg ah Baraawe loogu soo wareejiyo xarunta madaxtooyada koonfur galbeed oo hadda si ku meel gaar ah uga howlgasho magaalada Baydhabo. ilaha aan soo xiganay ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed uu odayaasha dhaqanka dhankooda ku adkeeyay in ay door muhiim ah ka qaataan nabadeynta Baraawe, bulshada qaybaheeda kala duwanna ay ku booriyaan la shaqaynta laamaha amniga. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayuu qorshuhu yahay in uu maanta ka ambabaxo degmada Baraawe oo uu xalay ku hoyday. Axmed Abuukar Sabriye, KNN, Shabeellaha Hoose. dagaalamayaasha ururka isku magacaabay khilaafada islaamka ee Daesh faracooda Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen inay taageerayaan hoggaanka cusub ee kooxdu ay yeelatay kadib markii toddobaadkii la soo dhaafay hogaamiyahoodii Abubakar al-Baghdadi la dilay. wariyaheena Liibaan Nuur Xasan ayaa isha soo mariyay waxa warbaahinta ka qortay. kooxda Daesh faraceeda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay war ka soo saartay dilka hogaamiyahoodii hore Abubakar al-Baghdadi oo toddobaadkii hore ciidamada dawladda Mareykanku ay ku dileen howlgal ay ka fuliyeen waqooyi bari dalka Syria. warbixin ay ka qortay wakaaladda Reuters ayaa lagu soo bandhigay sawirada kooxda oo isku urursanaya goobo kayn ah oo geedo hoostooda oo lagu sheegay inay tahay buuraleyda gobolka bari ee Puntland. Daesh ka dagaalanta Soomaaliya ayaa warka ka soo baxay ku sheegtay inay soo dhaweynayso hogaamiyaha cusub ee kooxda Daesh kaas oo fadhigiisu yahay dalka Syria oo ay kooxdani ku xoogan tahay.
sidoo kale waxay ku sheegeen warka ka soo baxay in ay daacad u yihiin hogaamiyaha cusub ee kooxda si buuxdana ay ula shaqayn doonaan. hadalka ka soo yeeray kooxda Daacish ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay sawirada hogaamiyaha cusub ee kooxda lagu baahiyay bartooda ay ku leeyihiin aaladda Telegramka. hogaamiyaha cusub ee kooxda Daacish ayaa lagu dhawaaqay Khamiistii la soo dhaafay iyagoona wacad ku maray inay ka arsan doonaan dawladda Mareykanka dilkii ay u geysatay hogaamiyahoodii hore Abubakar al-Baghdadi. warka duhur raadiyo kulmiye ayaad dhageysanaysaan. ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Caadil Cabdi Mahdi ayaa weydiistay dadka banaanbaxayaasha ah inay joojiyaan rabshadaha ay wadaan. ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inuu ogol yahay wada hadal uu la galo abaabulayaasha dibadbaxayaasha waxaana uu codsaday in rabshadaha la joojiyo. sidoo kale ra-iisul wasaare Caadil waxa uu sheegay in intii ay dibadbaxyadu socdeen dawladdu qasaartay malaayiin dollar oo lacag ah sidaa daraadeed la furo albaabada ganacsiga. dhanka kale ilaa 3 ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii dad banaanbaxaya ay weerareen qunsuliyadda Iiraan ee ku taala magaalada Karbala oo ah magaalo ay Shiicadu ku badan tahay. ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku kala ceyriyay dad ku xoomay dhismaha qunsuliyadda taasoo keentay geerida 3 ruux. ugu dambeyntiina koox burcad badeed ah ayaa qafaashay 9 ruux oo saarnaa markab nooca xamuulka qaada watana calanka wadanka Norway meel u dhow xeebaha dalka Benin galbeedka qaaradan Afrika. mas-uuliin u hadlay shirkadda markabkan iskale oo la yiraahdo JJ Ogland ayaa waxa ay sheegeen in koox hubaysnaa oo watay doonyo dheereeya ay weerareen markabkooda oo ku dhawaa dekada magaalada Cotonou la yiraahdo wadanka Benin ku taala. wararku waxay sheegayaan kooxda burcadbadeeda ah ay la dageen 9 qof oo saarnaa markabka shaqaalaha laga qafaashay oo magaciisa la yiraahdo Anfi Bonita ayaa siday sheexnad walxab beeraha lagu bacrimiyaa. shirkadda markabkan iskale weli ma aysan shaacin wadamada u dhasheen shaqaalahooda la afduubtay.